معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. daawadayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh. idil inhaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeennii weedha culimada xalqadiisii 10aad oo caawa matiin ugu yahay saxafi sare sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo si fiican uda taqaanaan warbaahintana in badan aad ka daawateen barnaamijyada dambe ee barnaamijka weedha culimadana ku casuuman. markaa ugu horeyn sheekha igula soo dhaweeya ustaad kusoo dhawo barnaamijka weedha culimada. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله. daawadayaal haddaan intaa ku dhaafo soo dhaweynta caawa ustaadku waxuu nagu qoran yahay hadafka uu nolosha ka leeyahay qofka muslimka. hadaful muslim fil xayaa, hadafka iyo ujeedka iyo gaayada qofka muslimka uu ka leeyahay noloshan gaaban ee adduunyo maxay tahay, muxuu ga faa'iideysan, maxaa miqyaas iyo cabirba u ah. mawduucaas oo faahfaahsan aan uga baxo sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar. أد بعض بحثنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا إمام المرسلين وقائد الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. وحوي ujeedada ama yoolka ama hadafka qofka muslimka ah uu nolosha ka leeyahay marka yani la soo hadal qaado waxa weeye marka horeba in lagu noqdo الهدف الرباني الأساسي الأزلي. ujeedada yani soo jireenka ahayd ee rabbi xaggiisa mar walba ka jirtay ee uu ku talagalay ee uu subxaanahu wa tacaala ka leeyahay ama ka lahaa khalqa alinsaan. insaanka keliya maahe insi iyo jinba ujeedada rabbi u abuurtay marka horeba qur-aanka kariimka ah wata uu inagu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa إلا ليعبدون. تاهرت مركو ugu horeysaba waa in la isla fahmaa. waxaynu u joognaa dunidan cimrigeedu kooban yahay intuu doona hal eegaado. qaar baa iminka yidhahdaa billions 4,000 oo milyan oo sannadood bay dunidan jirtay. waa yani wax ay qiyaasayaan laakiin cidina ma oga ilaahay abuuray mooyaane. laakiin in kastaba ha leekaato inta ay sheegayaan in kale haddii loogu sii daro wuxuu mar hadduu bilow iyo dhammaadba leeyahay waa kooban yahay. intaa laakiin maxaa lainoo keenay ilaahay waa inoo caddeeyey subxaanahu wa tacaala inooma qarin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. taa horta in la fahmo dhulkan inaad u joogto inaad ilaahay caabuddo. cibaadada ilaahay baa asaasa. waxaan kale oo dhamme waa wax kaabaya ama soo raacaya ama yani dhammays yeelayo kamilaya inaad ujeedada fuliso cibaadada ah. waxa kale oo ay tahay in la fahmo in wakaalad alla inoo dhiibay aynu sidno khilaafa
oo uu rabbi subxaanahu watacaala sheegay oo uu leeyahay malaa'igta isagoo la hadlaya innii jaacilun fi lardi khaliifa, dhulka waxa aan dejinaya oon geynaya khaliifa, mid iyo wixii ka tafarma oo khilaafada sidaya aniga wakiil iga noqda oo dhulka jooga. khilaafadaas ilaahay wakiilka lagaga yahay waa mid soconaysa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha, ilaa maalinta qiyaamo la gaadhayo waa mid soconaysa. yani nebi daauud calayhi salaam marta ilahay ku leeya yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq. daauud, nebiyullaahi daauud oo nebinimada iyo maamul yani dowladnimo oo boqortooye ah labadaba ilaahay isagiiyo inankiisii nebi suleymaan calayhim assalaam loo dhiibay. haddana waxa weeye ma lihid adigu mulkigan, waa mid aada aniga wakiliga tahay, khaliifa ayaa tahay. laakiin maxaad khaliifo ku tahay? xaqa inaad oogto. faxkum bayna annaasi bilxaq, dadka ugu garsoor oo ku xukum oo ku kala magaranaysaa badbaadi bilxaq. khilaafadaa markaa ilaahay yidhi wakiil baa ibni aadamku iga yahay inuu dhulka camiro. ujeeddadoodu waxa weeye insaanku inuu dhulkan horta camiro, inuu ka faa'iideysto kana faa'iideeyo, waayo ilaahay baa u sakhiray dhulka iyo samaawaadka iyo dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha, intuba musakharaat biamrihi lilinsaani. insaankay u sakhiran yihiin, ilaahay midiidin uga dhigay. isla markaa waxa weeye insaanku oo markaa dee mu'minka ah, ka aan mu'min ahayn ee baal maray sharcigii ilaahay, qaarna dee ilaahayba diideen, qaarna ambiyadiisii beeniyeen, kuwaasi dee daw kalay mareen. laakiin qofka mu'minka ah waxaa laga doonayaa oo ujeeddada uu u joogaaba ay tahay in uu xukumka ilaahay taago, oogo, manhajka ilaahay inuu ku socdo, waxna ku socodsiiyo, yani ciddo in laagin inuu ka leexan manhajkaas ilaahay. waxa kale oo ay tahay qofka mu'minka ah yoolkiisa iyo ujeeddadiisu inay ahaadaan in la fuliyo oo la meel mariyo alawaamir alrabbaaniya lilinsaan, amarada ilaahay uu faray insaanka. kalala hadlaya marka waa insaanka ilaahay garanaya ee u diyaara inuu manhajkiisa fuliyo, inuu xukunka yani adduunyada iyo wadideeda iyo maareynteeda sidii alla yidhi oo inta itaalkiisa aan waxba la hadhayn uu ku socodsiiyo. awaamirtaasi waa badan yihiin qofka mu'minka ee muslimka la faraya. aqim wajhaka liddiini xaniifa, yani diinta saafiga ah ee ilaahay oo isku wada mid ah, millata ibraahima xaniifan. imika marka laga hadlayo diimaha dunida waxaa la idhahdaa waa diimo badan, qaar dee aan diimaba ahayn bini aad iska dhoobdhoobtay, kuwa yani lagu tilmaamo aladyaan asamaawiya oo dee diinta keliya saxa ee maanta jirta ay tahay diin alislaam. laakiin masiixiyada iyo yahuudiyada labaduba ay leeyihiin usuul rabbaaniya markii hore, waxaana kaga sii hadhadheen xagga akhlaaqiyaadka iyo meelaha qaarkood, laakiin caqiidadii iyo cibaadadii ay ka dhinteen. waxaasoo dhan waxa weeye waa diinta saxa ah. ina diina cinda allahi islaam. nebi aadam ilaa nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam intaa ka dhexaysa ambiye iyo rasulba leh, diinta loo soo dirayay ee la faray inuu nebi waliba dadka gaarsiiyo, rasuul waliba dadka ku dhaqo, waa alislaam. inii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walarda xaniifa muslima wama ana min almushrikiin. nebi ibraahim baa ku dhawaaqay
waxaan wejigayga ula jeestay ilaaha i abuuray ee samaawaadka abuuray ee dhulka abuuray xaniifan musliman anoo aanay lahayn ma garanaysaa wax la socda saxar iyo raadad midna lahayna ay saafi lilaahi tacaala u tahay marka mar walba isku mid laakiin ibni aadan baa wax leexinaya wax ku daraya wax ka dhimaya hawadiisii raacinaya qofka markaa mu'minka ah waxa yoolkiisa iyo yani halbeegiisa ujeedadiisa uu nolosha u joogaa ay tahay waa inuu fahmo oo uu ku dadaalo oo aan waxba kala hadhin litakuna kalimatu llahi hiya alculyaa wa kalimatu aladiina kafaruu sufla taasa ayana ka mid ujeedooyinka qofka mu'minka ahi uu adduunyadan u joogo kelimada ilaahay waa sharcigiisa iyo manhajkiisa iyo awaamirtiisa iyo kutubtiisa uu soo rogay in ay noqoto alculyaa ta mar walba sarraysa wixii ka soo hadha oo kalimatu aladiina kafaruu wixii la doona ha lagu sheego mabaadidin la doono hala magacii la doono ha loo bixiyo wixii aan kalimatullaahi ahayn inay noqoto asufla ta hoosaysa ee la muquuniyey iyo cagta hoosteeda la geliyey qofka mu'minka ah ee muslimka ah ujeedooyinka uu u joogo arliga waxaa iyana ka mid ah inuu faafiyo oo meel walba gaadhsiiyo intii itaalkiisa ah alraxma waalcadl naxariista iyo cadaaladda garsoorka sida wanaagsan dadka loo dhaqayo ee aan loo kala axanayn labada ah inuu meel walba gaadhsiiyo siduu ku gaadhsiinaya waxa weeye an yansura diin allah diinta ilaahay manhajkeeda saxa ah iyo sida saxa ah ee laga soo gaadhay rasuulkii calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo asalaf asaalix siday u gaadhsiinayaan dunida in loo gaadhsiiyo meeshii diin islaamku gaadhaaba raxmad baa gaadhay cadaalad baa gaadhay marka manhajka ilaahay ee hawa nafs aanu ku jirin ujeeddo laga lahayn ee sidiisa isagoo mujarad ah loo fulinayo adaa markiiba ka oranaysa oo lagu garanaya taariikhda islaamkuna waa ka buuxdaa yani amhiladaasi oo markii yani alfutuuxaat dunida ay furteen yani muslimiintii yani jaziirat alcarab markii waktigii rasuulku alayh salatu slam walaaba yani maamulka islaamku waa gaadhay waktigii abubakar dhidibada usii aasbay markii uu ka adkaaday asxaabu ridda zamankii abubakar waxaa kaloo bilaabmay alfutuuxaat dowladda islaamku inay fido awoodeedii siyaasadeed iyo awoodeedii milatariba ay gaadho dhul badan oo ciraaq iyo shaam ay ka mid yihiin zamankii sidina cumar dee in duniduba maaragtay inteedii la yaqaanay marka intii ugu rooneydba ay hadhkii dowladda islaamka soo galaan raxmaddu markaa halkaa ciidamada muslimiintu ay gaadhaan ba raxmad baa gaadhaysa dalka la idhahdo masar iyadoo lays cunayo oo lays dilayo oo yani madaahib masiixi wada ah laysku dilayo madhabka boqorka laysku qasbayo iyo madhabka dadka oo la leeyahay iyana leeyihiin ma qaadanayno qasabku ma qaadanayno labadaa laysu dilayo oo birta layska aslay oo dad nolosha lagu gubayo qaar sida hilibka la solayo waxaasi jiraan baa ciidamadii muslimku gaadheen camr ibn caas radi allahu canhu hogaaminayey maalintaasaa la neefisay la yidhi qolo walayba kaniisadiina sidaa doontan u maamusha cibaadaadkeena waxaa sheegaysaa sidaa doontan u maamusha laakiin qolo ku xadgudbi kartaa ma jirto halkaasaa yani loo maray markaasa dadkii la leynayey dadkii la cadibayey dadkii la qixinayey dadkii cagta hoostooda ku jiray ay nafiseen marka waxa weeye qofku inuu mu'minka ahay weliba noqdo calaa bayina yaqiin adduunyadani inay zuuleyso oo aanay noqon meel iyadu ujeeddo ah ee ay tahay micbar biriijkii ku gudbanayay ujeeddada gaayada ah ee aan duugoobeyn oo ah jannat naciim
waxaa ka mid a waxyaabaha qofka mu'minkaa ay tahay inay ujeedooyinkiisa ka mid noqoto itqaan alcamal wax kastoo uu qabanayo ama camal dunyo ha ahaato ama mid yani diin iyo aakhiro loogu tabciye inuu itqaan ku sameeyo baylah tiro oo rasuulku waatuu la dhihi ilaahay wuxuu jecel yahay haddii aada hawl qofka addoonka ilaahay u ahay uu galo an yutqinahu in uu hagaajiyo oo baylah tiro waxaasoo dhammeena waxay kusoo ururayaan khitaaman iimaan iyo istiqaama ninkii u yimi rasuulka calayh isalaatu wasalaam ee acraabiga ahaa ee yihi rasuul allow bal ii sheeg wax diintaydii oo dhan iisoo ururinayo mar walba aan ku socdo aan yeelo wuxuu yihi qul aamantu billaahi uma istaqim waxaad tidhahdaa ilaahay baan rumeeyey dabeedna toosnaan iyo leexleex la-aan la kaalay hadafka qofka muslimka ah ama ujeedkiisa ujeedadiisu mar walba inay ahaataa aliimaanu billah aliimaan alxaqiiqiy oo dee cibaadadii iyo ma garanaysa wax waliba ay la socdaan uma alistiqaama taa uu ku taagnaado ku joogo وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الله كابال مريا كلمة نافعة يكون كان مهم كيونس تشيدي الشيخ محمود الشيخ أحمد المر إن كان الله هنغير له كوي كلمة داسي أنفعه كنا عمل فلا وضبقه. daawadayaal intaas waxaan ku saafmeeraynaa xalqadeennii barnaamijka oo caawimati nagu ahaa sheekh maxamuud sheekh axmed almar waxaan kaga tegaynaa fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.